inoo socda barnaamijkii ahaa aragtidaada ka dhigo gobolka Gabiley oo maamul iyo shacabba ay iskaa wax u qabso wax ku dhisayaan walaal magacaa jaamaco gobolka Gabiley waxa baryahan ba aad ka daawanayseen warbaahinta kala duwan in shacabka iyo maamulkuba ay iskaa wax u qabso ay wax ku dhisanayeen adiga aragtihan jaamaco sida kula muuqata aniga aragtihan waxa igu muuqata arrinka imka ka waranteen inuu yahay arrin looga baahay waddanka oo dhan reer Gabiley hadday ugu horeeyeen inay wax qabsadaan oo iskooda qabsadaan aad iyo aad bay ugu mahadsanyihiin waxay la tahay in gobolada iyo waddanka intiisa kale ay ku daydaan haddii jaamaco iskaa wax u qabso wax lagu dhiso oo goobaha dadweynaha ay ka dhaxeeya danta guud horumar intee leeg baa la gaari karaa waxay la tahay haddii taa la yeelo oo ilaahay ina waafajiyo dadka dhulkan ilaahay waafajiyo in si degdeg ah horumar degdeg oo baaxad loo oo qiimo badan oo wax weyn aynu muxuu ahaay aynu ku gaarayno in la gaari karo ila jaamaco shacabka reer Somaliland gobolada kala duwan degan maamulkooda iyo shacabkooda maxaad ku boorin lahayd waxaan ku boorin lahayd inay ku daydaan reer Gabiley sida yeelaan maanta ay yeelaan oo ay dhulkooda u soo jeestaan oo ay tacab geliyaan oo ay wax isku darsadaan oo ay wax qabsadaan oo aanay cid kale meel ka sii sababtoo ah dee ninna cid waxuma qabto haddaan wax qabsan isagu aad iyo aad buu mahadsanyahay jaamac waxay noo socdaa waa barnaamijkii ka dhiibo aragtidaada walaal magacaa maxamed maxamuudow baryahan waxaa tiifiyada ka socday iyo warbaahinta kala duwanba in gobolka Gabiley maamul iyo shacabba ay iskaa wax u qabso wax ku dhisanayeen adiga sideebaad u aragtaa oo aragtidaadu iskaa wax u qabsada wax lagu dhisiyo sidee kula muuqataa horta waa wax wanaagsan waana filan dalkoo dhan u baahan yahay adduunkana saa ku shaqeeya marka dee in laga dadaalo macanta oo weliba barxaba bilowday in laga dadaalo waayadii hore ay istirba kala maxaad ku boorinaysaa shacabka kale ee Somaliland ku dhaqan maamul iyo shacabba maxaad qoran lahayd oo ku boorinaysaa kulley arrimaha loo bilaabay dadka waa in inta kalena ay sameeyaan waana wax wanaagsan waa bilow wanaagsan haddii wax lagu dhiso laamiyada dawaska wax qabsaday haddii iskuulada lagu dhiso haddii isbitaalada lagu dhiso sidee buu noqon lahaa dalku imika dawladihii tan ka horreeyay ama dawladdiisii aad raba wax iska xuqsan haday barcatahay jeelkeeda iskuuladkeeda laamiyadeeda marka waa bilow wanaagsan taas in laga daano maanta horumar badan baa la gaari lahaa Soomaaliya si wacan waliba dadku in loo bilaabo wanaagsan imika iskuulada oo kale haddii la yiraahdo xiisadan waa iska wax u qabso way qabanayaan kuwa jeel ku jira iska wax u qabso annagu diyaar baa una dadka waa in la dhiirigeliyaa dadka shacabka la tusaa sida nidaamku yahay iyo qabadka iyo madaxda ayaga xunta daawada wali waxaan ku jirnaa barnaamijkii aragtida dadweynaha ee aan ku eegaynay bal iskaa wax u qabsada ka socota gobolka Gabiley ee maamul iyo shacabba ay gacanta ku hayaan waxaan joognaa bartamihii magaalada Burco walaal magacaa magacay waa Muuse Axmed Ismaaciil Muuse Axmed Ismaaciil oo wadiga baryahan tiifiyada iyo warbaahinta waxa laga daawanayay gobolka Gabiley maamulka iyo shacabkoodu waxay dhisanayaan iskaa wax u qabso bal sidee bay kula muuqataa adiga iskaa wax u qabso wax lagu dhistay waxay la muuqataa wax aad iyo aad u wacan oo fiican wixii waddankeennii hore ka tirsanaan jiray oo Soomaaliya ku dhismay weeyaan si wax u qabsadaas marka arrin aad iyo aad u fiican weeye waxaan jecelahay inay ku dayato Gabiley oo isticmaasho arrinka Muuse haddii iskuulada isbitaalada garoomada laamiyada haddii iskaa wax u qabso lagu dhiso maxaa soo bixi lahaa waxaa soo bixi lahaa wax aad iyo aad u wacan oo ah wax wada qabsi wada noolaansho iyo dal dhismay maxaad ku boorinaysaa haddaba shacabka kale ee reer Somaliland inay kaga daydaan Gabiley waxaan ku boorinayaa inay kaga daydaan iskaa wax u qabsada ay sameeyeen ay waddanka u horseedeen aad iyo aad dawo mahadsan reer Gabiley adiga mudan weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii daawade magaca maxamuud xuseen diiriye baryahan warbaahinta iyo tiifiyada iyo waxa ka socday gobolka Gabiley oo iskaa wax u qabso ay maamulka iyo shacabkoodu ku dhisanayaan adigu sidoo aragtaa iskaa wax u qabsada wax lagu dhisayo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku soo dhaweynayaa qolyaha reer Gabiley mashruuca iskaa wax u qabsada oo ay ugu dambeysay dawladda Soomaaliya oo wixii waddanka ku dhismay ee waxa weeye dawladda kacaanka ay ka tagtay inay dib u soo celiyeen iskamana waxa weeye hogaamintooda iyo qolahooda deegaanka keenay oo ku bogaadinaya gudoomiyaha waxa weeye degmada Gabiley nin dhalinyaro ah oo fikir fiican keenay oo dadka wax u taraya koob iyo 20 burco ee waxaan leeyahay ku dayda wax weeye Gabiley ama meesha iskaga taga ama wax weeye wax
ummadda wax keenaysa keeno oo qolaha waxa weeye tusaalaha idin noqon waxaan kaloo ku weydiinaynaa haddii lagu dhiso iska wax u qabso iskuullo garoomo laamiyo meelo dhallinyaradu ay ku ciyaarto maxaa ka soo bixi lahaa waxa ka soo baxaya wax fiican oo waxa weeye waxa imanaya wax wada lahaashii markaad adigu maanta dhagaxa qaado iskuulkii waxa weeye aad dhisto oo geedkiisii dhisto saldhigii dhisto aad caafimaadkii dhisto wixii wax ummaddu leeyahay oo aan cidina cid ka sheeganay baa imanaysa aad iyo aad baa umahadsan waa kiibir daawada weli waxay noo socday barnaamijkii sidee kula muuqataa magacaa jaamac cali maxamed jaamac caliyow gobolka gabiile maamul iyo shacabba waxay baryahanba aad ka daawanaysa warbaahinta kala duwan in ay iskaa wax u qabso wax ku dhisanayaan iskaa wax u qabso wax lagu dhisanayo jaamacow adiga say kula muuqataa aniga waxay igula muuqataa waa si wanaagsan waxaan kuu sheego waxaan ku yidhi waa sidii siyaad barre dalka hore ugu mariyey iskaa wax u qabso soomaad garan fadhigan iyo gacmolaabkan wax wali way ka wanaagsan yihin wax isku filaashan la soo baxayna haddaynu daacad noqono dalkeennu wuu nagu filan yahay haddaynu iimaan u yeelanno marka waxaynu leenahay aan dalkeenna kasbanno wax iimaan u yeelanno jaamacow haddii gobollada kale iyo shacabka kaleba haddii gobollada kale iyo shacabka kale ay iyaguna maamul iyo shacabba ay iskaa wax u qabso wax ku dhistaan heer intee la-eg baa la gaari lahaa dalka gebigiisu horuu mari lahaa dibad ba waynaan baahan cidda raashigana halkaa soo baxay nimka maanta waayo dal diin baynu haysanaa innagana cidina maanta wax aynu dibad u doonanaba waynu ka kaaftoomaynaa marka cudideenna aan maalo aan dalkeenna wax kala soo baxno dee muruqeena dhulka kusii deyno waad mahadsan jaamac magaca adiga aniga waxaa la yidhaha siciid aadi siciidow waad maqlaysay kolley sidee bay kula muuqataa gobolka gabiiley maamulkiisa iyo shacabkiisuba inay iska wax u qabso marka iska wax u qabso sidee baad u aragtaa waxaan u arkaa dadka gobolka gabiiley dad wax qabsanaya oo isku tiirsan waxaanan ku waanin lahaa dadka gobolkan togdheer ku jooga ama gobollada kala jooga inay ku daydaan gobolka waayo dadku waxa uu wax ku qabsadaa horumarna ku gaadhaa markay iskaashadaan ee ay gacantooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda ay kulmiyaan halkaasaa lagu gaari karaa heer sare imika waxaa ii muuqatay fafaalo wacan oo dhallinyaradu ay soo baxayso wax baranayso xooggii cusbaa iyo jiilkii cusbaa way inoo soo baxaya dalku waa dal dihin oo caalamka maanta dal dihin baynu haysanaa ammaan iyo nabadgelyaynu haysanaa waxaa loo baahan yahay inaynu ka faa'iidaysano xooggeenna waxna ku qabsanno waxa weeye ummadda waxaynu ahayn dad xoolo dhaqataa xoolahooda ku nool maanta xoolihii waxaad mooddaa inaynu sii daynayno in magaalooyinka soo gelayno magaalooyinkaas soo gelinteedu waxaa la doonayaa inaad qofku uu ka faa'iidaysto xooggiisa marka waxaan u arkaa inay aragti wacan ay dadkaas ku dhaqmeen gobollada kalena waxaan ku waaninaynaa in ay sidaasoo kale yeelaan oo la socdaan jawiga ka socda waddanka iyo horumarka waddanku gaadhayo dalku ictiraafkiisa waxaa ka wanaagsan inaad nidaamkiisa gudaha aad dhistaan si uu dalku horumar u gaadho waad mahadsan walaal magacaa muuse maxamuudow adiguna aragtidaada gobolka gabiiley ee maamulkiisa iyo shacabkiisiba ay dhisanayaan iska wax u qabso wax ku dhisanayaan adigu sidaad aragtaa waxaan u arkaa wax fiican oo aad iyo aad u wanaagsan ummaddu hadday wada jir wax ku qabsanayso waxbaba ka xidhmi maayaan horena way u maraysaa gobol walina inuu ku daydo gobolkaa oo fekerkaa iyo feker ka sarreeya la yimaado ayaan anigu aad iyo aad u soo dhaweynaya haddaan su-aal kale ku weydiinno tusaale ahaan haddii maanta magaaladan aan joogno laba garoon iska wax u qabsan lagu dhiso maxay noqonaysaa dee waxay noqonaysaa wax u soo kordhay oo faa'iido ah bay noqonaysaa haddii laba garoon iskaa wax u qabso loo dhiso faa'iido u soo kordhay bay noqonaysaa ay ku faantaan haddii isbitaallo iyo iskuulla la dhiso laamiyada la dhiso oo dadku iskaa wax u qabso wax ku dhistaan bilicda magaalada iyo gobolku ma kordhi lahaay oo meel fiican ma gaari lahaa haado uu kordhi lahaado raygayga waxaan u arkaa inuu kor u kici lahaa waayo dadku maadaama xoolo dhaqatay ahaayeen xoolihii way dhaafeen boqolkiiba 70 ayay dhaafeen faa'iido aad u sarreysa iyo waxbarashii heli lahaayeen haddii maanta arrimaha ku dhaqaaqaan maxaad ku boorinaysaa shacabka kale ee ku daawanaya ee gobollada Somaliland madax iyo maamul iyo madax iyo dadweynaha maxaad ku boorinaysaa waxaan ku boorinayaa mas'uul hadday tahay iyo shacab hadday tahay dadka mas'uuliyiinta hagta gobol walba mas'uul buu leeyahay mas'uuliyiintu waa inay shacabka hagtaa oo boroseeska lagu dhaqaaqaya ay soo dhigaan oo u soo bandhigaan dadweynaha inay u soo bandhigaan ayaa ku boorinaya mas'uuliyiinta gobollada joogta waad maasantay gabagabadii waxaan kula kulannay bartamaha magaalada Burco abwaanka caanka
fanaanka caanka ah majaajilasta caanka ah ee dhulka Soomaalidu ay joogto oo dhan laga yaqaano waa abwaan fanaan kabtan ciise jawaan السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga oo sheeg dadina magacaygu waa kabtan ciise cabdi ismaaciil. maxaad ku magac dheer tahay kabtan ciise jawaan. kabtan ciise waxaan ku weydiinay baryahan TV-yada iyo warbaahinta waxa laga daawanayay gobolka Gabiley maamulkiisa iyo shacabkiisa oo iskaa wax u qabso wax ku dhisanaya aragti ahaan adigu kabtan ciise jawaan saad aragtaa ummadda gaadhay baan u qabtaa shacabka iyo xukuumadda iyo qolahooda deegaanka iyo isku duuban dadweynuhu ay wax qabsadeen waxaan u arkaa xusuusiyo waayo dowladdii hore betelsiyaad barnaamijka inta badan waxay ku dhistay iskaa wax qabso haddaan muruqa iyo maalka iyo maskaxda la isla kaashano waxba ma qabsoomaan arrin aad iyo aad u wanaagsan weeye waan ku hambalyeynaya waana ku buurinaya Somaliland degmooyinkiisa iyo goboladiisa inay ku wada daydaan oo sidaas la mid ah wax u wada qabsadaan kaas wuxuu ahaa kabtan ciise jawaan waana gabagabadii daawade halkaan naga daawanaysaan waa baraha bulshada ay xidhiidho dhan YouTube-ka balbalaashe waa anigoo Cabdiweli Awdiiriye Guuleed qaybta farsamada kamaradana waxay waday Axmed Xasan Cali tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh